aabbahay waxa dhalay bir awoowahay waxa dhalay bir aniga waxay dhalay bir taana waa inaad aad ogaataan taa kadib waxaan salaamayaa oo kale markaan taa ka gudbo qada sharafta meesha lagu sameeyey oo ay ku sameeyeen beesha abtiyaashay mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa waana soo dhoweynayaa tan labaad halkan beesha suldaan maxamed iyo ugaaska nabadoonnada raggarboodka hablaha dhallinyarada dhammaan waan salaamayaa intaa kadib waxa weeye weligeen bir iyo aadan siciid ummadda waa iskaga dhowaayeen isdhal bay ahaayeen awowayaal bay ahaayeen waxa weeye nin baa wuxuu yidhi laba nin baa kabtamay oo wuxuu yidhi waryaa hooyadaa waayo waa warsangeli adna waa warsangeli adiga hooyaday waa bir buu yidhi markuu yidhi hooyaday waa bir buu wuxuu yidhi eeddanuugyow adinku ii dambeeya xafladan qiimaha badan munaasibadan inta ka soo qayb gashay ugu horeyn suldaanka ugaaska nabadoonnada uqaasha marti sharafta kaleeto ee xafladda ka soo qayb gashay dhammaantoonba waxaan ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadcelin halkan waxaan uga mahadcelinaynaa beelweynta aadan siciid anigoo ku hadlaya magaca beesha cabbaas muuse oo maanta qada sharafeed ugu samaysay beelweynta aadan siciid isimada dhaqanka ugu horeeyo suldaan maxamed xasan ugaas maxamed maakhari nabadoonnada cuqaashii wafdidii ballaarnayd ee beryaha kanba nala joogtay qada sharaftaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay noo qaabileen iyo qada sharafta ay kasoo qaybgalka ay ka soo qayb galeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa tan labaad waxaa inoo weelisay baan u malaynayaa ayaamka kanba kolley shirkan ka horreeyey waxaa la ilcaamiyey oo isimada iyo guurtidu ay u socotay amniga iyo nabadgelyada deegaanka in laga wada shaqeeyo la isugu yimaado loo shiro loo tashado guddi farsamo loo saaro taana waxaan leenahay annagu hadiintii intaa ka horreysayna waa isuga tagnay meelo badan baa wax noo marayaanin wixii ka dambeeyana tashigeeda iyo taladeeda waa u joognaa guddida farsamada haddii ciddii lasoo diyaarinayo oo waa naga diyaarsan tahay wada shaqaynteeda in lala shaqeeyo waxaanu leenahay intii kaleeto oo kolley dee nala joogadii baanu annagu waxaanu ka dhignay xafladatan ka dhignay waxaan leenahay inta kaleeto oo naga dhiman oo maalintii looto lahayd nala joogana dee nala jooga si aan laynoo ka tegin ee amniga laynoo kala shaqeeyo dee idinkana idinku dhiman warsangeli oo waxaan u malaynayaa kolley anaa idinku weynaayo idin horkacay halkaasaa warsangeli kaletana laga rabaa innagoo u baahi qabna isimada dhaqanka guurtida inoo timi iyo wixii aanu caal weynay oo aanu ka cabanaynay oo inoo ballan qaadeen inay waxna kala qabtaan inay nala dhammeeyaanin dadweynaha taasaan leeyahay aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay maanta inay abtiyada iyo hadimo sharafeed qurux badan qiimo badan ay ku soo dhaweeyaan beesha aan ka dhashay aadan siciid oo dhaqankooda aan cidi u maqnayn abtiyaal waa idinka guddoonnay si wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh sida aad noo karaamayseen ilaahay ha idiin karaameeyo sidaa noo soo dhaweyseenna ilaahay ha idiin soo dhaweeyo waajib bay nagu ahayd inaynu isu nimaadno waayo inagu dadka waa iska xignaa wiil iyo abtigiisaynu nahay walaalaynu nahay isku degaan baynu nahay isku dan baynu nahay wax meel dadku kala hadhaya ma nihin dee dhallinyaradana in la ogeysiiyo oo inteennaa joogta ay ogeysiiyaan waa wax loo waajiba oo meesha ku jira inaynu saa isugu soo dhowaano oo intaa iskaga sii dhowaanana dee inana waynu malaynaynay dadkuna waa la malaynayay dadka sharaftaa maanta aad noo samayseen iyo gogosha quruxda badanna ilaahay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda miisaanka xasanaadka ha idiin saaro aniga kulley dee dareenkayga maanta lama qiyaasi karo labadaydii garab
inaan ka dhex khudbadayo oo wax aad u qiimo badan marka ilaahay waxaan halka uga mahadcelinaynaa beesha Cabbaas Muuse ninay abti u yihiin iyo ninay awoowo u yihiinba waxaan u malaynayaa cid ka madhan inaanay jirin aniga awoowahay Saleebaan Maxamuud Naale yaa la oran jiray nin Cabbaas Muuse abuu ahaa anagu taariikhdaasaan ku leenahay anagoo awoowo ah aadna waa ugu mahadcelinaynaa kaalmaha badan oo ay leeyihiin oo dhulka lagaga qiimeeyana way leeyihiinoo ducada iyagaa iskale oo warsangeli hadduu isugu yimaado kow waxaa la kiciyaa cid Cabbaas Muuse ah iskuma qaldamaanin siday noo sharfeen iyo siday noo soo dhoweeyeen beesha aadan siciid oo suldaanka iyo ugaaska iyo beelaha kale ay uga soo qayb galeen si ay ugu soo dhoweeyeen ugu qiimeeyeenna ilaa maalintii horena way ka qayb galeen maantana mid gaara bay kaga qayb galeen waa u mahadcelinaynaa 9% waxaanu leenahay isku ul iyo isku diir iyo isku daabaynu nahay halka waxaan ka salaamayaa ummadda meesha isugu timooye cabdiscasumeen abtiyaashay oo tolkay ah iyo abtiyaashayba oo ugu horeeyo suldaanka iyo ugaaska iyo anigu waxaan ahay waxaan ka dhaxayaa labada beelood nin baanu kaftanayo waxaan halkaas fadhi ku dirirkaasaan ku kaftanayo waxaan ku yiri dadka taariikhdiisa suugaanta laga dayaa hooyada ma garanaysaa wax suugaanta meesha ay kaga soo meel lagu soo qaadqaaday waa waayay waxaan ku yiri aniga sayidkii baa soo qaaday hooyaday wuxuu yiri dabkii reer markow darajo roonaa naagana diriyo leel ka soo dega qabooba aniga horta hooyaday waa taa abtiyaal waa idiin mahadcelinayaa ma hadda waxaan kala mid ahay tolka idiin yimi oo aad maamuusteen oo qada sharafta u samayseen waxaan dheerahay xambaaradii mar labaad baan idiin mahadcelinayaa abtiyaal oo harimo sharafeedkan u sameeyey beesha aadan siciid oo isku duuban oo dhaqankeeda iyo guurtideeda iyo aqoon-yahameedkeeda oo dhammaysan yihiin waxaan leeyahay allah qaadirka ah waxaan idinka rajaynayaa waana sharafteene allah idin sharfo waan idinka mahadcelinaynaa harimo sharafeedka aad noo samayseen intaa markaan ka gudbo awowayaal ummaddan meesha ku nool marka laga reebo beesha Cabbaas Muuse ama beesha direed waa dadkii aa dhasheen dhammaan marka hore labaad beesha tan halkaa maanta ku casunteen waa beeshii aad tamxaara wadaagta ahaydeen inta maanta halka fadhida waxaan madayaa kii aan abti loo ahayna awow waa loo yahay kii aan aabbihii iyo isaga la dhalinna awowihiisaa la dhalay waa aad baan ugu wada faraxsannahay waxaan marka rabaa inaan ku soo gebagabeeyo haddaanu nahay beelweynta aadan siciid oo dhaqankeedu dhammaystiran yahay inaad hor iyo horaan ugu soo horraysaan madaqadda dadkii deganaa casumadooda waa midaynu isku lahayn waana midaannu idin haynaa waana idinka mahadcelinaynaa adeegga deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tegin xarumaha bangiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareegsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan